ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان استغفر الله العظيم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله. ولا ليال وأني سلامي وحنقول سلامي سلامتاس قروح بدن إلهي دينتي سينقو بري تحية من الله طيبة مباركة oo ah nabad iyo raxmad iyo barako. aad baad umahadsantihiin insha allahu tacaala meel kastood dunida aad kaga sugantihiin. waxaan jeclahay maanta inaan haday dadka qaar usoo gashay saacaddii geeska afrikada bari habeenkii u bilaabmay waa habeen wanaagsan. dadka xataa ku nool la saacadda afrikada bari ee yurub iyo meel kastay joogaan ininkana waa habeen wanaagsan. dadka ku nool north america iyo meelaha kaleetana waa xili duhura galab wanaagsan. qaar kalean oran karnaa subax wanaagsan australia iyo meelaha aadka u fog iyagana waxaan dhihi karnaa subax wanaagsan. waa dunida caynkaa noqotay sida loogu baahay bayna kamid tahay. ilaahay haynoo barakeeyo ninba waqtiga uu nool yahay uu joogo iyo ninba meesha uu ku sugan yahay uu dunida kaga sugan yahay. ilaahay hanoo barakeeyo tabaaraka wa tacaala aamiin. waxaan jeclahay maanta inaan ka hadlo mowduuc aan isleeyahay waa mowduucii saacadda. waa mowduuc aan iska taagi doono laba dhan amba laba dhinac aan iska taagi doono insha allah oo ka duwanaan doonta maalihii hore aan iska soo taagnay. waana mowduuc aan ku khilaafsanahay dad fara badan oo analysis ku sameeyey arrimaha ka socda geeska africa. geeska africa markaan ka hadlayno soomaali uma jeedno, jabuuti uma jeedno, ethiopia uma jeedno sudan, uma jeedno kenya. waxaan u jeednaa geeska africa. geeska africa wuxuu leeyahay laba macno ballaadhan oo dhahdo geeska africada ballaadhan oo dowladaha igaadka oo dhan ay soo galayaan, iyo macno la yidhaahdo macnaha kooban urursan oo ay soo galayaan asaaska soomaalidoo dhan iyo canfartoo dhan. marka la dhahdo qowmiyaad, marka la dhahdo wadanana soomaalida iyo ethiopia iyo waxaa soo galaysa jabuuti, soomaaliya, ethiopia, jabuuti iyo eritrea ayaa si cad u galaysa. marka wadanada waxaa loo yaqaanaa geeska africa. haddaan sii ballaadhino bariga africa orna waa meel dheer waxaan tagayno, laakiin waxaa muhiima inaan noqono dad micyaarka ay wataan uu yahay daqiiq. geeska africa uma jeedno mar labaad, oromona uma jeedno, soomaalina uma jeedno. waxaa iminka socda anigu kama hadlayo ee ah dagaalka loo wado si caruurnimo ah marka qaarkood, amba loo wado si caatifiya, amba loo wado si aynan maanka iyo maskaxda ku jirin, oon laga fikirin mustaqbalka halkee la aadi doonaa marka ay dagaalkaasi u ballaadho oo dadka soomaalida iyo dadka oromadu ay isku dhacaan. macnahaas anigu ma wado, laakiin macno kala wadaa oo in layla fiiriyo u baahan. okay, geeska africa waxaan ka hadlaynaa maxaa hor yuurara isbedelka hirgala geeska africa, maxaase xal ah? su-aasha baan isweydiinanaa. marka su-aashaas baan ka jawaabi doonaa insha allahu tacaala. arrinta waa dhanka aan iska taagayno, waxaan baarayno waa arrintaas. maxaa caqabaada, maxaa hor yuurara, maxaa mashaakila, maxaa noo diidan inaan isbedel sameyno positive oo wanaagsan oo aan ummadeena faa'iido u keeno. maxaa hor yaala dhibaatadaan sheegayna 1 2 3 4 5 haduu ilahdo. arinta labaad waxaan keenaa maxaa xala solution baan soo muxuu yahay. marka arintaasi waa arinta koobaad haduu ilaahay ihahdo tabaaraka wa tacaala. arinta labaad oon doonayno inaan faafino maanta aan tilmaam ka bixiyo waxa weeye mowduuca ku saabsan waxa loo yaqaano cilmi la yidhaahdo acnology baa dhahdaa. waa cilmi lagu daraaseeyo jaamicadaha ku yaala maraykanka, canada
wadano fara badan Australia, Jabaanka, Shiinaha waa lagu daraaseeyaa. cilmiga magaciisu waxa dhadaba yiri acnology waxay ka dhigan tahay cilmiga jahliga. wax isku hor imanaya aqoon iyo jaahilnimo wax isku xirmi kara maaha, laakiin waa cilmi la daraaseeyo weeye. cilmiga waxa kale oo loo yaqaanaa sinaacatul jahli, sidee loo sameeyaa dadka in jaahil looga dhigo. waa kitaab baa jira uu qoray doctor la yidhaahdo Nucmaat Axmed Fuaad oo caraba, wuxuu u bixiyey kitaabka sinaacatul jahli, sidee loo sameeyaa jaahilnimo. qofkii oo aqoon leh sidee looga dhigaa jaahil, qofkii oo diin iyo cilmi diineed leh sidee looga dhigaa jaahil. marka cilmigaasna mawduucaana aad baan iskula arkay doonaa insha allahu tacaala. waxaana ka arki doonaa dhacdooyinka geeska Afrika ka dhacaya, sida ay dad uga dhigayaan iyagoo aqoon leh jaahil, oo ay ku jaahilsamayaan wax ay shalay ogaayeen maanta ay jaahil dilba ka noqonayaan oo ay isbedilayaan. taas baan iyadana aan isla eegi doonaa hadduu ilaahay idhaahdo tabaaraka wa tacaala. okay walaalayaal, inta aanan bilaabin mawduuca waxaan jeclahay, waxaan ku furanay aayad qur'aan ah oo inoo akrinaya sheekh reer Arakana, wadanka Araka la dhahdo. marka Maxamed Arakani waa qaari weyn oo la yaqaano, wuxuu inoo akrinayay aayadan quraanka ah. wuxuuna laba aayadood baan u jeedaa buu inoo akhriyay. wuxuuna aayadda quraankii ay tahay aayadaha cilmiga sunanka. waxa weeyaan cilmiga sunanku ilaahay taariikh markuu adduunka insaanka keenay, naajar buu dhex keenay, naatiir dabeecad buu dhex keenay. wuxuu yihi la falgal. falgalka uu insaanku nolosha la falgalayo wuxuu dejiyay hab uu ku najixiyo iyo hab uu ku fashilmayo iyo hab uu uga hortagayo dhibaatooyinka ayuu ilaahay kownka sii dhex dhigay. wuxuuna inagu amray inaan soo saarno, namuusiin namu oran waa kaa waxaad ku hormaraysiin. wuxuu inoo yidhi kownka baara, kala soo baxa habka aada noloshiina ku habeyn doontiin hadduu ilaahay idhaahdo tabaaraka wa tacaala. kadibna weheshada kitaabka qur-aanka ah, ininkoo kitaabka qur-aanka nuurkiisa ku eegaya iyaad marka labaad eegeysiin buuri ilaahay tabaaraka wa tacaala arinta kale ee muhiimka oo ah inaad adduunka kala soo baxdaan waxaas. okay, waxaa jira kitaab uu qoray wadaad la yidhaahdo, wadaad maaha, waa filosof, waa wadaad, waa mufakir, waa calaamo, ilaahay naxariis janna ha siiyo, Cabdiraxmaan Alkawaakibi baa dhahdaa. Cabdiraxmaan Alkawaakibi waxa weeyaan culimmada ugu waaweyn ee islaamka soo martay qarnigii hore bilowgiisii. waa reer Suuriya. wuxuu qoray kitaabkan, wuxuu u bixiyey dabaa'icu listibdaad. dictatorku alistibdaad waa dictatorku dabeecadaha uu leeyahay, dabaa'ic. waa qarnigii 20aad bilowgiisii wuxuu qoray. waa masaaricu listicbaad, dadka la adoonsadana halkey ku dhamaadaan, maxaa laaya masaaricdu maxay ku dhamaadaan. marka kitaabku waxa weeyaan waa xaadir iyo mustaqbal. dabaa'icdu waxa weeyaan waa xaadir, dadka dictator ku nool xaadirkii ku noolaayeen marka weeyaan. masaaricduna waxa weeyaan halka ay aadi doonaan, masaaricu listibdaad. marka masaaric kitaabkan markuu qoray, istibdaadkan adduunka islaamka, Afrika, carabta ka jira ma jiri jirin dictatorkani. masaaricdan iminka dhacdayna ma jiri jirin, laakiin sheekhan kitaabkan buu kusii sheegay. haddaad akhrisatid kitaabkan aad baad ula yaabi doontaa. waxaa jira kitaab kale oo isaguna kaas waxaan u bixiyay anigu Cabdiraxmaan Alkawaakibiga. iminka waxaa qoray ninka la dhahdo doctor Khalis Jalabi. ninkani isaguna waa reer Suuriya, cajiib. wadaadkana Suuriya ahaa raximahullah. wadaadkana waa dhakhtar, nin dhakhtara weeyaan. wuxuu ka baxay jaamicadda Suuriya qeybta dhakhtarnimada. kadib wuxuu aaday Jarmalka, wuxuu bartay cilmiga dhakhtarnimada interniga hoosta, iyuu cilmi badan ka bartay. kadib wuxuu noqday nin islaami ah oo diinta islaamka ragga u halgama ah iyo xoriyadda iyo dimuqraadiyadda walaaleeya. kadibna ninkaasi dagaalo, xadhigyo, wax badan buu galay. Jarmalka, Sacuudiga ka shaqeeyey. iminka wuxuu ku gabagabaysmay noloshiisu Canada. wuxuu ku nool yahay Montreal iyo Toronto dhexdooda. wuxuuna deganaasho si maaragtay kheyr rasmiyana u degan yahay dalka maxaa dhahdaa Morocco ama Maghrib. waa nin gaara weeyaan, dadka uu ka duwan yahay. kitaab buu qoray uu bixiyey alistibdaad almucaasir. waxay la socotaa malaya. marka isagu wuxuu qoray dictatorka cusub mucaasirka, kuwa iminka nool, caqliga dadka say uga xadaan, say u wareeriyaan, say been ugu sheegaan, beenta loo rumaysto.
siday dadku ugu diyaar yihiin in been loo sheego, kadibna ay beenta intay rumaystaan ay sii faafiyaan oo ay la soo fadhiistaan idaacadaha iyo telefishinada ay ummadaha ku akhriyaan, kadibna hadhow markay beentii ogaadaan haddana si yaroo fudud beenta uga baxaan oo ay dhahdaan wallahi sidan kale qof kale iska dhigaan kii shalay wax diidana maaha mid kaluba noqdaaba. waa cajaaibta waxay kamid tahay bini aadanka. kitaabkaasina waa muhiim jiddan. kitaabka ugu dambeeya oon jeclahay isagu maaha kitaab siyaasadii waxaa ka hadlaya, waa kitaab uu qoray mufakirkii weynaa calaamadii Ghazali waxaa raximahullah fiqhu asiira dhada. okay, ninkan siiraha nabiga waa la diraaseeyey calayhi salaatu wasalaam. waxaa diraaseeyey boqolaal haddaan oran kumaan kun qof. waxaa diraaseeyey dad muslina, waxaa diraaseeyey dad gaalaa. waxaa siiraha nabiga diraaseeyey dad la noolaa, waxaa diraaseeyey dad iminka nool, waxaa diraaseeyey dad cadow ku ahaa waqtiguu noolaa, waxaa diraaseeyey dad markuu noolaa aada u jeclaa, waxaa diraaseeyey kuwa aanan nacabsanayn jeclaysanin oo muxayidiin dhexdhexaad ah. waxaa lagu diraaseeyey meelo badan. kitaabkan uu ka duwan yahay waxaas oo dhan. wuxuu kaga duwan yahay kitaabkan maxamed Ghazali markuu qorayey laba shay buu ka qoray. wuxuu ku qoray isaga oo madiine fadhiya oo weliba rawdada fadhiya, meesha rawda shariifa dhacdo, qabriga nabiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam ayuu qorayay. ruux buu ku qoray aada u iimaan badan. laba, kitaabkan wuxuu ku qoray isagoo ka qoraya hogaamiye. wuxuu yihi markaan qorayo waxaan qoraya anigoo dareensan inaan askari ahay, hogaamiyihiisii wax ka qoraya, amba inaan ahay arday macalinkiisii wax ka qoraya, amba inaan ahay nin jacaylku waraariyey oo wax qoraya. saas u qoray. laakiin markaad gudaha dhex gashid waxaad arkaysaa taasina way jirtaa, fiqhina uu jiraa, cilmi buu kasoo saaraya. muxuu nebigu filkan u sameeyey, muxuu u sameyn waayey sidan si ka duwan, beli taarikhda lagama baadho. nebigu waxbuu sameeyey alay salatu wasalam. matala sulxu xudaybiya heshiis buu galay, muxuu u dagaalami waayey iyuu basagu baadhaya. heshiis muxuu u galay, muxuu u dagaalami waayey? maya, muxuu dagaalka iska din waayey, heshiiska muxuu usoo laami waayey? waxaasoo dhan buu baadhayaa raximahullah sheekh maxamed alghazali raximahullah. okay walaalayaal, waxaan jeclay haddaba inaan mawduuceeni bilaabano. waxaan ku bilaabaynaa tafsiirka aayadda qur-aanka een imika aan isla haynay insha allahu tacaala. alxamdulilah. waxaa mashaakila jira. okay, waan soo soconaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi aayaddii amba labadii aayadood aayaddii horeeto wuxuu yihi afalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim waladaaru alaakhirati khayru liladiina taqow afalaa tacqiluun. sadaqa allahu alcadiim. ilaahay wuxuu ku yihi aayaddan may socdaan, mayna soconeyn, may socdaan. afalam yasiiruu fi lardi, dhulka maxay u socon laayeen? su-aal tacajubi istinkaari weeye, waa su-aal la yaab leh. maxay u socon laayihiin dhulka dadku? maxay istuwaarka u akrin laayihin wey? taariikhda maxay u akrin laayihiin? maxay indhaha u furi laayihiin, dhagahana u furi laayihiin? afalam yasiiruu fi lardi, ilan juqraafigu dhulku wuxuu ahaa meeshii masraxiyadda bini aadamku ku sameeyey. taariikhda bini aadamku meesha ka dhacdo dhan waa dhulka korkiisa. marka maxaa dhulka loo socon laaya? ko, maxaa markaan socdaan helayaa? fayanduruu ay eegaan kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim, kuwii ka horeeyey halkay ku dhamaadeen. maxay ku fashilmeen dadkii inagu horeeyey? maad eegtiin. waa arrinta labaad. saddex, ilahi wuxu uhi waladaaru alaakhira, daarta aakhira waxay u khayr badan tahay liladiina taqow, kuwa ilaahay ka baqa, yacni kuwa fahma taariikhda socodkeega ee samaysta system ay ku badbaadaan adduun iyo aakhiraba, kuwaabay aakhira u taraysaa. arrinta afraad ilahi wuxuu ihi afalaa tacqiluun, caqliga maxaad u shaqaysiin lahadiin? okay, aayaddan waxaa ku jira ilaa iyo waxaan oran karnaa 6 arrimood. 6 arrimood maxay yihiin? ko, ta koowaad wax weeyaan in dhulka la socdo, dhulka korkiisa in la socdo oo la baxo oo safar la galo, safar la aado. ninku hadduu fadhiyo heejaduu ku dhashay wuxuu moodaya adduunku inay heejadu tahay. ninku hadduu tolkii u dhex fadhiyo wuxuu moodaya adduunka inay tolkii un jiraan, qof kale jirin. ninku hadduu la nool yahay dadka isaga u dhow, dadka is hayaan buu moodaya inay taarikhdu dhex socoto. soconayna dhulka oo dhan inaan soconno waa ko. socodkuna waa 2 nooc. nooca koowaad waxa weeye walaalayaal inaad fisig ahaan socotid oo safar gashid, ood matala Yurub tagtid, dhulka carabta tagtid, Afrika tagtid, America tagtid, Australia aadid, wadanada jaarkaaga aadid,
wax kastaba inaad aragtid shucuubta inaad daraasa ku samaysid adoo dhex socda sida ay samayn jireen dadkii loo yaqaanay alraxaala dadkii istikshafiinta ahaa ee socodka badnaa sida ibn batuuta oo kale raximahullah hada sayr fiziyaai weyan waa jirkaa socda amba sayr caqlaani adoo gurigaaga iska fadhiya iyaa waxaa dunida laga qoray oo dhan aad akhrisan karaysaa walihada waxaa loo baahan yahay akhrisku wuxuu muhiim u yahay adoo degan baad wax akrinaysaa nuun wlqalami wamaa yasturuun ilahay baa ku dhaaranaya in wax la akriyo iqra marka inaad akridid taariikhda bini aadamka waa laga maarmaan weyaan ood aadid meesha la dhigay raadreebkii bini aadamka halkee la dhigay halkee lagu raadreebay inaad aragtid waa muhiim weyan marka labadaa shay baa ku jira socodka arrinta labaad waxaa ku jira fiqhu lcawaaqib waxa loo yaqaano ummaddu markay socoto halkee ku dhamaataa inaad baratid haddaan si nabada u soconno halkeen gaadhaynaa si dagaala halkeen gaadhaynaa si dulya halkeen gaadhaynaa si raganimo les halkeen gaadhaynaa si istraatiijikal haddaan u soconno halkeen gaadhaynaa haddaan sidaasi ahn u soconnana halkeen gaadhaynaa waxaa la dhahdaa alcawaaqib in la eego halkee lagu dhamaanaya ilahay muxuu yihi fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim dad baa fashilmay dadna way najexeen kuwa najaxay maxay ku najexeen kuwa fashilmeen maxay ku fashilmeen in la eego waa waxa loo yaqaano sunno weyaan muraacaat lma'aalaat halkee lagu dhamaanaya waa waxa aan maalin dhawata maqaal ka qoran u bixiyey inama alafcaalu maxaa ihi bilma'aalaat hadduu qof fil siyaasadeed sameeyo maxay ku dhamaanaysaa waa in la eego fal siyaasadeed buu sameeyey matalan saan arki doono ninkii xakumaya gobolka shanaad maxay ku dhamaatay falkii siyaasadeed uu sameeyey waan isla arki doonaa waa ma'aal waxaad imika sameynaysa halkee tagaysaa in la garto okay arrinta labaadi waa taa weyaan ayadda ku jirta afalam yasiruu fi lardi qur-aanku ma aha kitaab geeriyaha lagu akriyo ama ma aha kitaab caadi ah waa kitaab cabqari ah waa kitaab maskaxda furfuraya wuxuu le fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim tii saddexaad qur-aanku wuxuu ayadda waxaa ku jirta annadra alistraatiijiya lalwaaqiciya inaad yeelatid aragti istraatiijiya maaha mid imika u nool waxa maanta joogo inaad ku dhex baalatid maaha okay ood ka sheekaysid maanta oo dhan intaad soo fadhiisatid telefishinka oromaa soomaali qabsanaysa amba soomaali baa ormo leynaysa aad ka sheekaysid amba aad ka sheekaysid maaha waxaa isdiriraya dadka qaar caqliga yar leh ay ka dhigeen dagaalka dhan ee geeska africa ka socda ee caalamiga iyo rahiibka ay ka dhigeen waxay u bixiyeen afkayga ayaan ka dhowrayaaye waxay u bixiyeen maaragtay daarood iyo dir iyo daarood baa isdiriraya subxaana allahi alcadiim wax maaragtay caruurnimo ah wey dadka qaarkood waxay ku sheekeynayaan marka halkaa inaad imatid ood ka baxdid teoriga la dhado anadra la fishinka la dhado istraatiijiga aad ka baxdid marka ilahay muxuu yihi waladaaru laakhira qofka muslimku ilaa aakhiru ka fikray hadalka aad leedahay beri waa lagu xisaabin doonaa xisaabi iminka carabkaaga waxaa kasoo baxaya miisaan ku samee waladaaru laakhira khayru liladiina itaqow kuwa ilaahay ka baqaya daarta aakhira u khayr badan buu ilahi subxaanahu wa tacaala arrintaasina ku jirta ayadda qur-aanka lakin sa waa inaan akrino arrinta afraad ayadda ku jirta maxay waxaa ku jirta akhdu lqaraari almunaasib walxiita inaan marka aan decision qaadanayno munaasiba digtooni ay jirto inaad indhaha furtid inaad garatid waxaan socdaay siduu u socdaa iyaa wada halkee laga wadaa sideen uga hortagi karaynaa maxaa inaan tallaabo qaadnaa iyaa qaadi goortee la qaadi waxaas oo dhan baa u baahan in si istraatiijikala loo eego ayadaasina halkaasina maxay ku jirtaa liladiina itaqow kuwa ilaahay ka baqaya ee maskaxda iyo qalbiga shaqaysiinaya ma degdegaan waxay sameeyaan tallaabada waxay qaadaan waqtiga munaasibkaa waxay u qaadaan meesha munaasibkaa waxay iska ilaaliyaan wax aan munaasib ahayn okay ugu dambeyntii waxaa ku qoran ayadda qur-aanka istikdaamu lcaql in caqliga la shaqaysiiyo maaha inuu ilaahay maan kugu abuuro wixii kugu soo dhacaba aad tirahdid o dagaal baa dhacay waan galaynaa nabad baa dhacday waan galaynaa maaha caqliga shaqaysiiy caqliga markaad shaqaysiisid waxaad ogaan doontaa waxaa dhacaya muxuu u dhacaya waxaa dhacaya iyaa wada waxaa dhacaya sidee looga hortagi karaa waxaa dhacaya maxaan kaga hortagi karaa istikdaami alcaql ilahay markaa muxuu ku gabagabay ayadda qur-aanka afalaa tacqiluun miyaanad caqli lahayn aaway caqligii halkeed caqligii iska geyseen okay markaad idhegeysanaysid aniga caqli igu dhegeyso waxaad igu diideysidna caqli ku diid waxaad ogolaanaysidna caqli ku ogolow markaad qof kale dhegeysanaysid caqli ku dhegeyso waxaad ku ogolaan caqli ku ogolow waxaad ku diidina caqli ku diid
qofka ha eegin muxuu yahay reer kuu yahay markuu hadlayo ha eegin matalan nin tolkaaya hadduu hadlayo ha ka wada qaadan wuxuu sheegayo la waxaad eegtaa wuxuu leeyahay qof kale maaha walidaalika waxay dhahdaan dadku waa labo culummada maaragtay cilmiga jarxiga wa tacdiilku ee xadaaraadku waxay dhahdaan dadku waa labo aladiina yanduruuna ila alqaa'il lalqowl waladiina yulaaxiduuna alqowla lalqaa'il dad baa jira qofka eega hadlaya wuxuu ku hadlay o dhan qaata iyo dad waxaa jira waxa uu leeyahay un eega aynan ahmiyad u lahayn qofka wax sheegaya muhiim buu noqon karaa nin cilmi leh sheekh mufakir filosof daaci weyn uu noqon karaa laakiin waxaa ka muhiimsan inaad eegtid qofka qowlkiisana maxaa laga mulaaxadeeyaa dhowr shay kow daliilka argimaanka xujadu haysto laba waxaa laga eegaa manhajiyadda metodologiga uu ku socdo saddex waxaa laga mulaaxadeeyaa qofka marka aad dhegeysanaysid in uu waxaan uu ka hadlayo iska soo eegay maaha inta uu jeclaaday un inuu dadka soo hor fadhiistay oo wuxuu doonayo u sheego waa inuu laabmay waa inuu baaray waa inuu ka daba tagay waa inuu meel kasta kasoo eegay waxaasoo dhan waa lagaba maarmaan weeye marka arrintaas maxayna tusa aayadda qur-aankii waxay dhisaysaa maskaxdeena maankeena dhisaysaa caqligeena dhisaysaa bal anu ma arkayna caqligeena dhisayso caqligeena ballaadhinaysaa cajiib caqligeena iyay habeynaysaa caqligeena iyay utusaysaa sida loo fikro inaan la iska fikirin walidaalika nin la ihahdo lua safi oo caalim weyn oo muslimiinta culimada kamid cilmiga usul fiq ku takhasusay wuxuu qoray kitaab u bixiyey icmaalu lcaqli caqliga in la shaqaysiiyo marka caqliga in la shaqaysiiyo maxaa kasoo horjeeda saddex qolaa kasoo horjeeda waxaa kasoo horjeeda qol la ihahdo ilgaau lcaqli in caqliga laga tago markaan caqliga ka tago maxaan shaqaysiinaya qalbiga caatifada qofkaan doonaan jeclaanaya waan iska jeclaanaya reerkaan doonaan jeclaanaya waan iska jeclaanaya reerkaan doonaan nacaya waan iska nacaya adduunku suu socdo ma arkaye waan iska boodaya un lacag baan ururinaya dagaal baan galaya dagaal baan dadka gelinaya ummadda waan sara haggana ka shaqeynaya haggana aqalkaan kaga yimid istiqaala iyuu marka loo bixiya wuxuu bixiyaa caqligiibaa galay waxaa loo yaqaana retret yani macaash buu galay caqligiibaa la yidhi hadeeta hawlgab baa la geliyay caqligii mushkiladaasina waa mushkilad weyaan arinta muhiimka ah ee labaad uu sheekhaasi sheego ee kasoo horjeeda shaqaysiinta caqliga waxaa kamid a walaalayaal waxaa loo yaqaano tajzi'at lcaqli in caqliga la qaybiyo oo manhajiyadii takaamuliga laga daayo oo ahayd inuu caqliga soomaaliga caqliga etoobiyaanka caqliga anfarta caqliga oromada caqligeenu inuu noqdo caqli qaybsan muxuu isugu qaybsan yahay waxa aan jecelahay unbuu caqligeyga gali karaa waxaan jeclay maba gali karaaba waa mushkilad caqligaagaa qaybinaysa tajzia caqligaaga kama dhigaysa takaamuli war macrifadu waa takaamuli diintu waa macrifo cilmaaninimaduna macrifa ku jirta waxaa jira wadaado qof cilmaaniya hadduu hadlayo aama dhegeysanayba limaada lianna wuxuu aaminsan yahay waxa uu sheego inay qalad tahay sax maaha waxaa jira qole cilmaaniyin la dhahdo oo xadaasiyin la dhahdo modern sheegta oo hadduu wadaad hadlaya dhegeysanayba wuxuu kuleeyay inuu madaxa inuu qabsuu doonaya la uma dhibayo la waxaa loo baahan yahay labadan macrifada diiniguna waa muhiim macrifada aqoonta cilmiguna waa muhiim labadan inaan madaxeena u furno oo ay gasho saddex arrinta saddexaad maxay tashawuh lcaqli baa dhada jira caqligii oo siduu u fikirayay la rogay tashawuh baa dhadaa ilmaha yar markuu dhalanay maaragtay janiinku hadduu kusoo dhasho ceebo indhihiio xidhan hadduu soo dhasho amba hadduu kusoo dhasho faruurtiio furan amba hadduu kusoo dhasho ilkihii oo jirin afkiisii qalooca amba indhihii afkii halkana waxaa loo yaqaana waxaa tashawuh khalqi qofka wuxuu abuurmay si qaldan ba yuu uga soo baxay maaragtay warshadii ilaahay ugu talagalay subxaanahu watacaala markaa ma buuxo kaamil maaha marka maxaa la sameynaya waxaa jira dad markay caqliga adeegsanayaan si mushawaha u adeegsanaya oonan manhajiyeysneyn saddexdaas si loola dagaalamo caqliga si manhajiya iyaa loo shaqaysiiya waxyaala maanta arki doona baa kamid a muxaadaro cilmiya maaha laakiin waa aaraar waa inaan albaaban ka galna aan helo waxa aan ka hadlayna maanta in sha allahu tacaala waxa ajaab le waxa weyan ikhwani fillah waxaan jeclahay inaan afar aqoon-yahan maalin dhowta nin baa ila soo hadlayo ciyaalka faransiiska wax ku bartaya wuxuuri buugaan badan oo carabi aad noo sheegta anaguna faransiiska waxaan ku baranay dee arrintaasi ma arrin fiican ba waa arrin la baadho u baahan inaad faransiiska wax ku baratay oo wax fiican weyaan lakin carabiga bartid waa muhiim anigu waxaan isku dayaa inaan buugaanta faransiiska akriyo haddaan fahmi waayana inaad turjunto laakiin waan akriya filosofiyada faransiiska o dhan waan akriya kulligooga adigo ceeb bay kugu tahay inaad tirahdid ma fahmayno qoladan waa qolo jirta waxaa laga yaaba aqoon ahaan
inay kaba horeeyaan in badani kuwa aad akhriday wax ku yaalla weeyaan. kuwo kale oo ingiliishkana saasay dhahdaan. marka annaka madaxeenii baa la kala guumaystay, qeyb carab baa haysata, qeybna faransiis baa haysta, qeybna ingiriis, qeybna talyaani. kulli mar baan xoroobi doonaa hadduu ilaah dhahdo tabaaraka wa tacaala. okay, waxaan jeclahay marka inaan 4 kitaabo cajiiba ama 4 ninoo cajiiba oo maanta weheshanayno afkaartooda oo weheshanayna nama maamulayaan iyagu waa weheshanayna. waxa weeyaan ninka koowaad waxaa dhahdaa sayfudiin cabdulfataax, waa prof jaamacadda qaahira ka dhiga, inkastoo iminka ka qaxootiyoobay uu ku nool yahay wadanka turkiga. waa prof weyn, waa ardaydii cabdulwahaab masiri filosofkii weynaya masaarida. waxa uu qoray maqaal uu bixiyey almu'aamara wa tafsiiru taariikh. mawduucaas waa muhim. mu'aamara maxay ka dhigan tahay? mu'aamaradu waxa weeye wax waloo dunida ka dhacaya dad baa wada, annakuna waa nala wataa. dooni baan korsannahay annaku aan lahayn. waa waxa u yaqaanaan faransiisku teoriga loo yaqaano complot. adduunka teori di complot baa dhaha, wax la yaqaan wayaan. ingiliishkuna teoriga u yaqaanaa uu samaxdada conspiracy baa dhaha, conspiracy baa dhaha, piracy. okay, conspiracy-gaas maxay ka dhigan tahay? waxay ka dhigan tahay nadariyadani adduunka dhan mu'aamara wada. nin ma aragtay nin maxaan ku dhahdaa africana ayaa yidhi ce genre de théorie du complot n'est pas rare en Afrique. in xaqiiqa ahaan in ay ka dhacdo complot, inuu ka dhaco mu'aamaro, inay ka dhacdo dad dibadda wax ka xidhxidhaya oo kasoo maaragtay jiidjiidaya inay jiraan wax ku yar maaha Africa. oo wax Africa maalin walba ka jirta. markii dambe uu soo qabtay wuxuu yidhi haddana waxay ka jirtaa les autres pays oo ah tiyaaqmoodka o dhan, alcaalam salis oo dhan, arrintaasi way ka jirtaa buri ninkaa. waa qoraal weyn oo raasiligaala. okay, marka dad baa jira rumaysan nadariyad dhan teoriga la dhahdo complot, teoriga la dhahdo sidaan sheegnay conspiracy la dhahdo, piracy, oo ah inay Afrika iyo Carab iyo la wato oo iyaku ayna jirin, ay yihiin xayawaan dhulka dul fadhiyo. macnahaas arrintaas insha ku hay doonaa. oo arrintan ka dhacday maanta geeska Afrika ee oromadii iyo isku dhaca iyo maaragtay Soomaalida halku ka yimid nadariyada buu ku xidhan yahay complot-ga. waan arki doonaa. arrin labaad baa jirta nin la yidhaahdo cali al-Ubaydi, doctor cali al-Ubaydi, kitaab buu qoray la yidhaahdo addimuqraatiyatu bayna cilmi alintiqaal wa cilmi tarsiikh. markaas muxuu qoray dimuqraadiyadii oo udhaxaysa cilmi la yidhahdo ila marka la guurayo ee laga guurayo xaalad ee xaalad loo guurayo waa aqoon. laskama guuro dadkii oo dictator ku nool sidii kitaabka iminka aan sheegayna istibdaad, sida Ethiopia, sida Djibouti, sida Eritrea, sida Sudan. yani meesha aan ku noolahay waxa dhada kayntii dictatorada, waa kayn waxa dhex fadhino dictator iska haystaan iyo fawda Soomaaliya ka jiraysa muddo fara badan après kadib dictatorkii. meesha caynkaas u eg inay ka guurto xaaladda ay ku sugan tahay oo ay u guurto ilaa xaalad dimuqraadiya waa cilmi, waa aqoon. cilmu lintiqaal baa loo bixiyay, waa la diraasayaa iminka. wa cilmu tarsiikh baa haddana jiro, marka la guuro saan arki doono, marka la guuro sidee loo xididayn dimuqraadiyaddii, sidee loo sameyn mujtamac degan oo awaltooda xoog lagu haystay, siduu caqligu u shaqayn, qaanuunku u shaqayn, heshiiskuna u shaqayn. sidee looga guuri mujtamac qabaliya ilaa mujtamac dowladeed, sidee looga guuri mujtamac kala shakisan ilaa mujtamac kalsooni isku haya, sidee looga guuri mujtamac kala danaysta ilaa bulsho danaysata. waa intiqaalki. haddana sidee loo xidideen tarsiikhi weyaan. kitaabkaas ama maqaalkaas buu kaga hadlay ninkaas isaguna aqoonyahanka weyn. okay, ninka la dhahdo Jasim Sultan oo isaguna reer Qatara oo aqoonyahan weyna wuxuu qoray maqaal u bixiyey kayfa natacaamal maca alxukuumaat almustabidati walcamiilati laa xawla walaa quwa. seen ula dhaqanaa dowlado dictatora isla markaasina dabadhilifya ah. laba cudur bay leeyihin. carabtu waxay tirahdaa axashafan wa suu'a kiilatin bay tirahdaa. nin baa mar timir iibinayo, timirtii uu iibinayey waxay ahayd timir xun oona ba-an oon la iibsan karin, uu soo dhigay. kadib markuu dadka iibinayna, markuu miisaamayena uu dadka u kaylayena uu dhacay. laba isku darsaday, timir xumo iyo miisaan xumi. waxaa loo bixiyay markaa waxaa la keenay maahmaah carab oo tirahda xumaan iyo miisaan daro.
waa laba shay isku beeray marka annaka geeskeena Afrika muslimiinta carabta afrikanka waxa haysta wax weeyaan waa dictateero isla markaasina daba dhilifya qofku wuxuu noqon karaa dictator sida Shiino kale Shiinuhu waa waxa lagu xukumaa dictateero laakiin camiilo maaha daba dhilifyo waxay yihiin dad xor ah waxa weeyaan Iran waxa ka jira dictateeri diiniya ka jirta laakiin daba dhilifyo maaha xor bay yihiin waxa laga yaabaa marka qaar kood Erdogan inay ku jirto sifaad dictateernimo oo nin maaha 100% dimuqraadiya oo xora maaha ma indhaliin waa nin isticmaaliyo xoog iyo awood iyo wax badan dictateernimo ku jirta laakiin maaha camiil daba dhilif maaha Malaysia ninkii madaxweynihii hore imika soo laamay wasaarihii hore yaa Mahathir dictator buu ahaa laakiin camiil maahay daba dhilif maahay laakiin annaka problemkeen waa maxay dictatorkii police plus waxa lagu darayaa waa daba dhilif sidee marka ugu hortagnaa iyo qoray ninkaasi maqaal kale oo xitaa uu bedelay hadal wuxuu qoray kayfa nurhib al-akharina ya isaw al-a'daa buu qorana ka masaxada kayfa nurhib al-a'daa bila qital sideen uga cabsiinaa dadka aan ishayno annagoo la dagaalamayno waa system la barto adoon hub qaadan daacishna noqon shabaabna noqon waxna qarxin seefa qaadan hub qaadan sidee baad qofka ku hor fadhiya aad uga cabsiin kartaa maskaxiyan waa cilmi la bartay isaguna okay halkan markaa walaalayaal waxaan maanta u fadhinaa waa mawduuc aad u culus mawduuc caadi ma wuxuuna caadi wahayn waxa weeyaan sawraddii carabtu revolutionka carabtu uu fashilmay fashal waqtiyeysan ma fashilmin 100% uu soo laba kacnay marka Masar dadka la socday xoog bay la socdaan inuu siisi kabaha urursanayo uu cabsi ku jiro maxaa yeelay dhammaan aqooyahankii oo dhan waxay isku tageen inay Masar tawrad weyn ay soo socoto tii hore ka halis badan 3 sano 2 sano gudaheeda waa la wada og yahay waxaana hadlay dad fara badan oo aqoonyahana oo soo baray fashilmaysa laakiin sawraddii weynada socotay waa la joojiyay yaa joojiyay waa islaarki doona tan uu ka dhacday Ethiopia oo ay bilaabeen oromadu oo ay labeeyeen amxaarku oo ay saddexeeyeen Soomaalidu gaar ahaan dhalinyarada barbaarta la dhacdo ee ku nool gobolka City ee Soomaalida ay saddexeeyeen bahasha saa u socota ee wanaagsan ee kadib keentay inay geeska Afrika dhaqaaqajiso in la fashiliyo waa laga shaqeynayaa iyaa ka shaqeynaya seer looga bixi waa su'aal muhiim ah marka waxaan halkan jeclahay inaan 3 arrimood inii sheego oo halis ah oo maxaa hor ila socdo maxaa hor yuurara isbedel ka dhaca geeska Afrika maxaa saxala maxaa hor yuurara aad baan u geli doonaa waxa inii sheegay teoriga la dhahdo mu'aamarada ya comploga amba wixii aan u bixinay conspiracy ma dhaha af Ingiriisku afkaygi ma waa laakiin waan isku dayanaan soo fahmaan dadka af Ingiriiska ku hadlana waa mu'aamarada waxa dadku intay soo ka soo shaqeeyaan soo dhigaan ay ku keenayaan okay waxa jirta nadariyadaas waxay abuurtaa 5 shay dadka aamina inay nadariyadaasi teoriga inuu sax yahay inuu sax dadka aamina 5 shay ba yaa laga arkaa koow waxa laga arkaa aqliyatul mu'amara wuxuu aaminaa wax kasti oo dhacaya in la wado iminka مثلا example misaal baan siinaya reer Djibouti waxay oranayaan Ismaaciil Umar Bisaw eegan waxay yiraahdaan maanta u dhamaatay Faransiis buu isku tagtaagayba waa laga takhalusay lagama takhalusay u socdaa waan fahanay Faransiisku buu shaqeeyaa halkoogu waa basid لأن عقليسا مؤامراتها والله سبي إنه وحي آمنه كمبلو إنه آمنه هذا نوع كذا الله ما أنت مريكان بوسكو ضد تشيله راعي وده ما وده وأنا كان وحول شقيا سكرتي بارتي مخابرات كعالمي ولا شقيا عادي ما عقلي جوجي وحى قال واحد هذا مؤامرات وحي موديان إنا وحول بدي بدل لقى صوص سبعي وجوده بلا شقيا عقلية طبعا أبورتها لبا وحكى لا أبورتها فكرة المؤامرة dadku markay fadhiyaan majlisyada iyo maqaaxiyaha iyo guryaha waxay ka sheekaystaan fikrad la yiraahdo mu'amara Soomaaliya waa la duminayaa Djibouti waa la duminayaa geeska Afrika waa la baabi'inayaa qaar baa ila soo hadlayo igale mu'amara khatarana loo soo sameeyay haye waan ku kala tagaynaa meesha loo socdana waa maxay waa sanska Ethiopia ku yaala iyo geeska Afrika oo dhan loo baabi'inayaa okay fikratul mu'amara taa waxa la iska dayan looma aamino waa la iska eega waa saddex waxa jira waxaado
nafsiyat lmu'aamara psychological waxaad u abuurmi inaad aamintid inay mu'aamara meel kasba ka dhacayso sida dacwadaad noqon markaa jeesigaad badin xaggan waa lagaa soo galay xaggan waa lagaa soo galay xaggan waa lagaa haya xaggan oromaa ku haysa xaggan amxaar baa ku haya xaggan tigree baa ku haya xaggan maraykan baa ku haya xaggan shiina ku haya xaggan israa'iil baa ku haysa xaggan madax baa ku haysa seed u bixi laa ilaaha ila allah waad bukoonba psychological ahaan ducaad bugtaad jirta imika oo markay soo fadhiistaan adduunkani dhibaataa ka dhacaysa noloma dadka xalba uma keenayaan marka taasina eeg waa nadariyadii waxa abuuraysa maxay abuurtay caqli mu'aamara maxay abuurtay fikri mu'aamaraya saddex maxay samaysay ya psychological ahaan psychologic ma mu'aamara okay arinta afaraad ee abuurmaysa waa maxay waxa loo yaqaano manhajiyat lmu'aamara iyo abuurmaysa jazakum allah khayr manhajiyat lmu'aamara waa maxay qofku wuxuu rumaynayaa methodology ahaan habka marka inuu wax qoro doonayo inuu wax akhriyo doonayo inuu wax sameeyo doonayo okay wuxuu u fikiri si mu'aamariya waa la lahayaaye sidaan u baxnaa mu'aamaro ka sheekeen bas arrinta ugu dambaysa waa maxay marka uu rabo inuu dadka wax la xaliyo uu dadka u bandhiga fikrad wuxuu ku bandhigayaa caqliya mu'aamaratiya isagoo mu'aamaraatiyu dhigaya isaguna wayna laynayaan han layno wayna duminayaan han dumino way noo fikirayaan han u fikirno ma keenaya xal ah waan wada nool lahay han wada noolaano waan wada dhaqannahay han wada dhaqanno waan wada leenahay han wada yeelano arrintaas waa madaxiisa ka baaba'aysa okay arrintan markaas maxaa inagu horyaala inuu isbedel geeska africa ka dhaco waxaa inagu horyaala wax weyaan maskaxdeena sidaan u samaysanahay inay wax ka bedelmi waayaan waxay keenaysaa inaan sidaa un ahaano caqligeena iyaa u abuuran in sidaa aan ahaano waa mushkilada koowaad taas weyaan arrin waxaa jirta dadku marka ay yihiin dad akrin waxna qorin idaacado xorana ayna jirin oo dadku ay ku nool yihiin inay wararka isku siiyaan afka ilaa degta isku siiyaan waxaa faafta fikradado fikratu lishaaca in wax la faafiyo waxaan jirin waxaan runahayn halkee lagu sameeyaa badi afkaarta ishaacada waxaa lagu sameeyaa laba meelood ko guriga madaxtooyada lagu soo sameeyaa madaxtooye walba hadday tahay soomaaliya etoobiya jabuuti suudaan waxaa lagu sameeyaa ishaaca dadka in laga dhaadhiciyaa way faaftaa marka waxaa loo dhibaa dad basaskay la raacaan diyaaradahay la raacaan meelaha bay ka shasheegaan dadkuna si dhayal bay u qaataan fikratu lishaaca dhahda waxaa kale oo lagu sameeyaa guriga mukhaabaraadka meesha sirdoonka matalan wuxuu ka sheekeeya gaariye ilaah u naxariistee markii soomaaliya ayna burburin mukhaabaraadka soomaaliya waxay samayn jireen dagaalkii reeraha say u samayn jireen waxaa la fadhiisan jiray guri waxaa la qaban jiray beriga waxaa jiri jiray wixii loo jiray cajaladaha cajalad baa la qaban jiray cajalada waxaa maanta lagu caayayaa reer hebel reer qurac marka waa la faafiyaa cajalada kun baa laga faafiyaa wadanko dhan bay gaadha waa loo soo jawaabi cajaladii waxaa dib u faafinaya oo badinaya mukhaabaraadkii maxay waxaan u wadaan fikradan ishaacada waxay rabaan dadku inaynan acnology ay ku noolaadaan cilmu jahl inay jaahil ahaadaan sinaacat ljahl inaa xaqiiqada dadka laga fogeeyo marka ishaacadu waa saas weyaan ishaaca been baa la faafinaya beentaabaa dhex socotaa facebooka beentaabaa dhex socotaa suuqa been dadku xaqiiqadii ma tagayaan maxaa waxaan keenay midna ma tagayo mid kasta wuxuu ka tagaya arrintaas arrinta labaad waxa weyaan shaksanat lxayaat noloshii baa la personaliteynaya qof baa lagu xidhaya noloshii mushkilada dhan ee gobolka shanaad ka socota waa cabdi iiley dadkoo dhan waxay mucaarad ku yihiin cabdi iiley haddana dadka u arkaya inuu cabdi iiley xal yahay waxay leeyihin cabdi iiley lama bedeli karayo idan cabdi iiley amba waa shaytaan amba waa nebi dadka qaarkood waa nebi nin fiican buu yahay dadka qaarkoodna shaytaan buu yahay waar cabdi iiley project buu kamid yahay projectiga ma aadinaa ma ka sheekeynaa may cabdi iiley adiga arkaya ismaaciil cumar adiga arkaya waxa weeyaan farmaajo adiga arkaya xasan khayra adiga muusabixi cumar albashiir shaksanat lxayaat noloshiiba qof baan ku xidhnay waa inaan ka baxno qofka oon mashruuc aadno project ma huwa mashruuc cabdi iiley project cabdi cumar mu watay barnaamij ma wadan cabdi iiley barnaamij wuxuu ahaa barnaamij loo soo dhiibay yaa u soo dhiibay tigreegii baa dhamaaday okay barnaamijkii tigreegi muxuu isku bedelay sir xagga dambe u tagay cabdi iiley markaa barnaamijka aduu hirgeli baa laga leeya anaku xagga dambe aan fadhinaaye hirgelinaya
shalay buu lahaa cabdiile anaku ethiopian baan nahay ethiopianimada waan ku faanaynaa 24 saaca gudaheega wuxuu noqday Soomaali baan nahay waan xoroobina Soomaalinimaan ku faanaynaa ethiopian Soomaali soo socon kara waan la guumaysanaya waa isagii uun laakiin dadkii waa dadka arkay shakhsana waxay ku dhex diileen waxay ku dhex wareereen isagii arintaas waa muhiim arinta saddexaad waxa weeyaan qiyaab alqira'a as-sunaniya dadkeena waxa ka maqan in la akhriyo nolosha si sunna loo akhriyo war qofku inuu dhacayo inaad garatid inuu dhacayo nidaamku inuu dhacayo inaad garatid inuu dhacayo inuu isbedel ka socdo gobolka shanaad inaad gobolka Ethiopia iyo geeska Afrika inaad garatid maaha inaad ku horimatid oo tiraad war waxaan waa filim maaha uba socdaaba qira'a sunaniya ku akhri okay halkeen la aadaya iyadoo wax gooniya laakiin isbedel ma socda ha u socda maxaan yeelaa inaad garatid iyaduna waa lagaba maarmaan okay ikhwaani ma ku soo celina maxaa in hor yuurara amba hor yuurara isbedel inuu ka dhaco geeska maxaa oranay maxaan dhahnay Afrika geeska Afrika okay alxamdulillah waxaa jira waxyaalada in hor yuurara waxaa ka mid ah waan dhageystay dad fara badan siyaasiyiin baan dhageystay usbuucan oo dhan waxaan dhageystay aqoon-yahano waxaan dhageystay dumar hadlaya waxaan dhageystay inama hadlaya waxaan dhageystay dhalinyaro koonfureed maaragtay bariga Soomaaliya Somaliland waxaan dhageystay kuwa degan gobolka maaragtay awdal kuwa degan salal waxaan dhageystay kuwa degan Djibouti kuwa degan maxaan ku dhahdaa city Soomaaliya waxaan dhageystay kuwa degan Jijiga kuwa degan Qabri Dahare kuwa degan Guday waxaan dhageystay kuwa kale oo degan dibadaha oo gobolada ka soo kala jeeda waxaan dhageystay kuwa LFD degan Kenya wax badan baan isku day inaan dhageysto dhalinyarada waxbaan ka soo qaatay dadka markay hadlayaan cajiib weeyaan kulluhum waxay u kala baxeen laba kooxood waxay u kala baxeen did iyo maca waxay u kala baxeen did iyo maca maxay kana tahay avec iyo contre si kala aan dhigno Soomaaligeeni waan la jiraa iyo waan ka soo horjeedaa mutlaq baan ula jiraa 100% waan ka soo horjeedaa 100% maxaa baabay marka dhexdii maxaa waxa keena iyadna waa la baaraa maxaa inoo diidan inuu isbedel geeska Afrika maxaa keena inay dadku labada kala baxaan laba iskool noqdaan laba dugsi noqdaan waxaa sheegay ninka Jasim Sultan waa caalim istaraatiiji kale wuxuu yiri marka kriisasku ay dhacaan azamaadku ay dhacaan mashaakilku ay dhacaan dadku waxa u kala baxaan laba qolo okay qola baabada qola la yaqaan yaa baabada qolada baabada wuxuu aqoon-yahanka iyo istaraatiijiyada iyo siyaasiyiinta oo hogaamiyaashu way baabaan maxay noqdaan waxay noqdaan buuri caamo noqdaan sida caamada u fikiraan dadka inay kiciyaan inay dagaal geliyaan waxa ma noqdaan way iloobaan inay yihiin dad wax akhrin kara way baabaan buuri tamaahi ba ku dhaca waxbay ku dhex baabaan laba dadkii caamaduna halkay tagaan xayawaan bay noqdaan buuri xayawaan maxay tahay waxay qaataan qoriyaha iyo budka waxay raadaan xoogga maanta shaqeynaya maanku ma shaqeynayo okay marka maxaa baabaa dadkii halka Kenya ayaa tirmaya okay marka halka markaan socono waxaan isla garan karnaa arrimahan geeska Afrika ka socda waxaa la rabaa inaa dadka maankii laga lumiyo maskaxdii laga lumiyo indhihii furnaa la xidho dhagihii waaweynaa la aawdo waxaa la rabaa meeshii maskaxda ay wax uga tegayeen in la xidho waxaad arkaysaa dad waaweyn oo 10 sano ugu dambeeyay Cabdi Umar Cabdi Ili mucaarad ku ahaa oo habeen quraata ku noqday rag la jira yabba igu dhacay waxaad arkaysaa dad maaragtay say isku bedeleen sidoo qofkan Soomaaliga markii yareed ba isku bedelay 4 saac gudaheega insaanka ba u baahan in la daraasayo mana fahmi karna ilaa aan akhrino kutubta laga qoray cilmul jahli aknolojiga markaan akhrino cilmiga markaan akhrino iyaan fahmaynaa cilmiga jahligu geeska Afrika wuxuu ka shaqeeyaa Soomaalida wuxuu ka shaqeeyaa sunna la dhahdo tajhiilu naas can qadaaya almasiriya dadku inay bilaa masiir noqdaan dadku waa qabyaalad qofka bini aadanka diintiisa koobaadi waa qabiil wuxuu ku fikirayaa fi daakhil alqafas alqabali kama bixi karo waxaan la yaabay bari waxaa isku yimid 3 wadaad oo isku reera 3 wadaad waxay ku kala jiraan 3 dugsi fikirka oo kala duwan mid waa salafi mid waa tabliiq midna waa ikhwaan muslimiin waa islaax saddexdu waa walaalo weyn waa ilmaadeer qaraabi waxay kala galaan 3 shir kan shirka khuruuj ku taga wuxuu ka hadlaa sida dacwada loo faafinayo ala nabad al khuruuji
mid wuxuu tagaa shirka salafiga wuxuu ka sheekeeyaa sida ummadda loo hogaaminayo loo barbedilayo, midna shirka islaax iyo ikhwaanku tagaa. laakiin markay isku yimaadeen ay saddexdoodii isku yimaadeen isku reerka ahaa ee kala duwanaa fikriyan, maxay ka sheekaystaan maad ogtihiin? waxay ka sheekaystaan reerkeena si u difaacnaa, si reerkeena uga difaacnaa. bal eegu fiirso, halkan wuxuu yahay fikri, halkanna wuxuu yahay qabali, waa isagii uun, waa shaqsigii uun. marka cilmu ljahli baa shaqeynaya, technology baa shaqeynaya, qofkani ma kobcayo. war anigu waan dhaafay marxaladii atafkiir alqabali, inaan si reera u fikiro. maxaad noqotay? marxalad waxaan galay atafkiir alfikri, waxaan anu fikir, dadkaan isku maskaxda nahay, isku maanka nahay, dad uun waxaan walaal nahay oon isku mara nahay. siduu gaari yidhi, qof aan wadaagno afkaar, qofka afkaar aad wadaagtiin baad isku tihiin isku maan. ninka aad waxa aad wadaagin waxaad tihiin isku jidh. ha waxaa niga dhexeeya magta iyo aaska, wax kaloo niga dhexeeyay ma jiro. halkaa ma gaadhno, mushkiladda in haysta waa taas weeyaan. sidaas daraaddeed dadkeenan geeska africa ku nool, waxyaalada caqabaadkeena haysta waxaa kamid a waxaa loo yaqaano jahlu fiqhi sunan. maadaama technology aan ku nool lahay, waxaan jaahil ka nahay fiqiga la yidhaahdo sidee bay noloshu u socotaa, sunan lxayaat. jaahil baan ka nahay, waan ku celinayaa, rag baa iska diiday jaahil oran, jaahil baan ka nahay. haddaan jaahil ka ahayn, waxaan dhacaya kama dhaceen, masar kama dhaceen, ciraaq kama dhaceen, suuriya kama dhaceen. fiqhu sunan jaahil baan ka nahay, soomaaliya kama dhaceen, ethiopia maanta waxaa ka socdaa ma socdeen. waa maxay? fiqhu sunan. labo, waxaan kale oon jaahil ka nahay, oon aad u aqoon, oon haafiliin ka nahay, siduu qur-aanku sheegay, ulaaika hum lghaafiluun, alghaflatu can aathaari sunan. sunna hadday kor dhacdo maxay keentaa? sunno taqyiir hadduu dhaco, isbedel hadduu dhaco, maxaa dhasha? lama sifal galno, iskuma sii diyaarino, mufaaji'a ayay nagu noqotaa, surprise, waan ka naxnaa. waa labo. saddex, waxaan kale oon aad u aqoon atacaamul maca sunan biijaabiya, inaan sunanka kula dhaqano si positive ah. siduu imaam albana yidhi raximahullah, laa tusaadimuu nawaamiisa alkowni fainaha ghalaabatun walakin haalibuuha almughaalaba. wuxuu yihi maarata sunanka ka hortegina ee sunanka weheshada ka adkaada socodsiiya. okay, so muhim maaha, waa muhim. waxaa kaloo jira oo ina haysta atacaamul maca sunan bidacfin. sunanka markaan la dhaqmayno, nolosheena socodkeega si daciifna ula dhaqanaa. ta ugu xun waa maxay? zayfu sunan, sunahan badilaaba, sunihii ilaahay dejiyey iyaan musayaf ka dhignaa. waa mashaakilka ina haysta weeyaan. ikhwaani fillah, walaalayaal, mushkilada kale islaahay maxaa inaga horjoogaa inuu isbedel ka dhaco geeska africa, si wanaagsan uga dhaco? maxaa saxala? dhibaatooyinka ina haysta waxaa kamid a, waxaa maqan dadka loo yaqaano culamaa lxadar, culamaa taxdiir, culamada aqoonyahanka wax ka diga. dadkaasi waxay u bixiyeen reer galbeedka, waxay u bixiyeen iskoolada reer galbeedka waxaa loo yaqaana culamaa rasd. arasd, rasdigu waxa weeye socodka falaga, astronomiga. waxaa la dhigaa maaragtay guryaha dushooda iyo bandaradaha dushooda iyo waxaa la dhigaa ajihizo, mashiina la dhigaa. mashiinadaasoo waaweyn, hal amba koox xidiga ah iyay la socdaan, meel kale ma aadaan, intaa un bay daba guraan. halkuu ka bilaamay, halkuu ku dhamaani, siduu yahay, siduu u shaqeynaya. rasdi baa dhada, dabagal waa dabagal wey. waxaa jira culummada noocaasa, waxaa loo yaqaanaa culummada dabagasha, dabagurta socodka bini aadanka, ka digta halkee lagu socdaa. alrawaaxilna carabta waa loola jiba hore, dadka usii guura iyaa la dhahdaa. kuwaasi way inaga maqan yihiin. walihaada waxaa loo bahanya inaan barano sunan la dhahda ataxdiir. ya ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum, digniintiina ku jira, waa inaad digtoonaatid. qof digtoon noloshu ciyaar maaha, taas waa muhim, waa sunno in la bartaa. sunaha labaad inaga maqan waxa weeye sunan taxriik, dadka in la dhaqaajiyo. bulshadii way dhaqaaqday, okay, maxay ku dhaqaaqday? naxw alxuriya, xuriyad baan doonaa bay tiri. dadka mufakiriinta iyo aqoonyahanku waa inay dhaqaajiyaan naxw aliijaabi, inay dhanka saxda u dhaqaaqaan, xuriyadda, dimuqraadiyadda, cadaaladda, ay dhanka qabiilka u dhaqaaqeen. taxriikka uu inaga maqan yahay. haddaan dhaqaajina dhanka waxba u dhaqaajina. sunanu tafciil baa jira, wixii la dhaqaajiyey sidee enerjigiisa looga faa'iideysani. ugu dambeyn waxaa jira sunanu tashkiil, sidee wax loo mashquuliyaa, sidee loona shaqaysiiyaa. waxaasoo dhani waa mushkilad ina haysato weyaan. ugu dambeynta ikhwaani fillah, mawduuca waan ku soconaa hadda, xalkii baan idin soo bandhigi doonaa.
mawduuca waxaa jira waxa dhahdo sunno weyn oo uu keenay ninkii la oran jiray Malik bin Nabi geeska Afrikan xoog bay uga muuqataa sunnaha la dhahdo aqbalaada ilaahay u naxariisto Malik bin Nabi rahimahullah caalimkii Algerian ahaa Faransiiska wax ku qori jiray Carabina loo turjumi jiray Ingiliishba kutubtiisa wuxuu ninkaasi France ku noolaa muddo fara badan caalim mekaaniki ahaa laakiin wuxuu noqday kadib caalim sociology culimada weyn cilmiga sociology cilmiga bulshada wuxuu keenay theory kale dhahdo ummadaha lama guumaysto ilaa ay aqbasho in la guumaysto alqaabila al-isticmaar wuxuu bixiyay okay علي شريعتي وحو كان فكرة بحي القابلية للاستحمار dadku inay dameer noqdaan way aqbalaan yaka aqbal in dameer la rarto in la raran karo qof kasta oo raran karo in aqbalaan dadku yaka u diyaar hadii diyaar wahay way iska cili lahayn nadariyadan sunnahan alqaabiliya la yiraahdo ya saxa ee kelmadda isticmaar ka saar istixmaarna ka saar waxa qaadataan nadariyada ah way aqbalayaan ilaa jirku hadii uunan microbka amba firiiska uunan aqbalayn jirku uu iska celinayo ma bukoodeen jirku goor ma bukooda marka la dilo manaacadiisa difaaciisa marka la dilo waxaa jira annaku geeska Afrika waxaan leenahay shan jiro oo aqbalaysa jirooyinka kow waxaa jira alqaabiliyatu lilistibdaad dhammaanteen waxaan diyaar u nahay in la adoonsado mustabid inuu qabsado waxaan leenahay iminka mar Djibouti aan isbedel wadnay waan wadnaa wali haday waxaan ka sheekay jirnay sideen u sameeynaa isbedel dadku waxay noo soo badhigayeen Ismaaciil ku bedelaysiin yani wa ayo qofka dictatorka aad fadhiisinaysiin kursiga Ismaaciil markaa kaxaysiin yaad kaxaynaysiin reer Soomaaliya markaan sheekaysana waxay dhahdeen Ismaaciil hadda kaxaysiin ka tagaysiin qofka raaysiin wasaw yani waxa la doonayo ma aha nidaam ma aha hab waa qof baanu abuuranahay in la guumaysto abdi iilay baan ka xaynaynaa waxaan keenaynaa abdi iilay kale waxaan ka xaynaynaa maartay hebel waxaan keenaynaa hebel kale waxa kada sidee u dhici kartaa wadanka Suudaan oo intaas oo jaamacada ku taalo 28 sano inuu nin dul fadhiyo xanuunsan jiran aqliga ka halaabay hadeeto isku haysta inuu yahay qof wax walba sameyn kara maandhowto wuxuu la hadlayay maartay koonfurta Suudaan sida ciyaal u dhalay uu waalinay waan qosli markaan dhageysanay khubadiis ciyaal u dhalay koonfurta Suudaan maartay salfageer iyo markuu la hadlayay halka buu gaaray qofka dictatorkii marka alqaabiliyatu waxaan leenahay dhamaantiin dadkeena geeska Afrika inteena badan istibdaad arinta labaad alqaabiliyatu lil istikhdaam baa leenahay waa qaabiliyadu waa sunne jirada ma leenahay in la adeegsado diyaar baa u nahay iyana adeegsanay qofkii doonaba anaga diyaar preparation baan ugu jira maxaan diyaar u nahay in dagaalna la geliyo diyaar baan nahay in nabadna la gelina diyaar baan nahay in la yiraahdo ummaddu way baabaaysa oo aqbalo diyaar baan in la yiraahdo ummaddu way horbar bi gaadhay oo aqbalo diyaar baan istikhdaam ana dameerkii la korayay ninka kora wuxuu doona u geeyay baan nahay arin saddexaad waxaan diyaar u nahay alqaabiliyatu litafjiir inaan mandiqada qarxinaba bug inaan sidaan Soomaaliya mar u qarxinay aan qarxino waan yaabay maalintii waxa ka dhacay magaalada maxay ahayd Jigjiga waxaan ka yaabay kuwa la soo diyaariyay dadka oran waayay war naga joojiya war kaniisada hajjabinina qofna mooran war hajjabinina maartay guriyaha war haleeyina dadka war maartay baankani ormadaha burburina lian intaasoo boqol intaasoo kun oo Soomaaliya iyo ormo ku dhex nool waxa dhacna markii dagaalku ka dhacay maartay dadka lagu laayay ormada lagu laayay amba dad Soomaaliya leeyahay ormo ee la laayay qabiilada Soomaaliya yaa ormo wala laayay dadkaasi waxay ku argoosteen magaalada Dirqabe dadka Dirqabe laayay halkan waxaan uga dirayaa taasi inanka Maxamed Maxamuud dhalinyarada ciyalkiisii oo dhan Dirqabe lagu laayay ilaa uu naxariisto ma saantiisii ubadkiisii la laayay ee la gubay qaldoodii dad baartay si wax shidma loo dilay waxaas maxaa keenaya waa al-ficlu wa radd al-fi'l ficil baa la sameeyay siyaasi oo khaldan waxa ka daymanaya radd al-fi'l siyaasiya oo khaldan marka taasina waa inaan qarxino diyaar baa u nahay waxaan kale oo diyaar u nahay alqaabiliyatu maxaa la yiraahdaa lil qabaliya inaan u fikirno si qabaliya diyaar baa u nahay dadkeeni Soomaali weyn ku fikirayay baa noqdo markii dambe daarodismi iyo dirirismi iyo ciisismi iyo wax badan yaa noqonay okay qaar baa aniga ila soo hadlay gale sheekh iska daa Soomaalinimadan iyo islaamnimadan iyo caalamiyadan iska daa reer buu Ilaahay ka dhigay u hadal afkii baa tahay reer ka hadal maxaa ku aamusiyay ajaa'ib marka waxaan qaabili u nahay maxay saas okay
arinta shanaad en qaabiliye u leenahay waa maxay alqaabiliyatu lilistihbaal inaan doqmo noqono in la doqomaysto oo dadku ay nawaalaan oo waxaan doonin mayna wax kale noo sheego iyadana maxaa u nahay diyaar baan u nahay okay intaas waxaan kaga baxayaa ikhwaani fillah max ina hor yaale ina hor yuurara muxuu yahay marka weliba waxaan arki doonaa waxaasoo xabad xabad afrikaanimadeeni ay ku jirto soomaalinimadeeni ay ku jirto muslimnimadii aan kasoo qaadanay dowladihii dambe na xakumay amawiyadii iyo cabaasiyadii iyo cusmaaniyadii iyo wixii raashidiinta aan hayne dictaateerada ahaa aan kasoo qaadanay wadaada diin nooga dhigeen oon sidano waxaas oo dhan baan wadanaa markaa baan rabnaa inaan qarniga 21 noolaano oon ku noolaano caqliyadii qarniga 21 aan ku noolaano waqti hore wax dhici kara maaha waxa la isku keeni kara maaha dowlad iyo badownimo isku iman karayso qabiil iyo dowlad isku iman karayso qabiilku waa muasasad waa institution ku fiican waxa weeyaan meel ay dowladda ka jirin meel dowladda ka jirto institution shaqeynaya maaha wuxuu ku shaqeynayaa wax kale laakiin inaan idhahdo 4.5 aan ku qaybsano waxan oo reera ah way socon laadahay way dhaqaaqi laadahay artaha lagu sameeyo bicirka lagu sameeyo kii sameeya qaldama laakiin waa qaldan tahay in la idhahdo reer baa nus ah bini aadan ilaahay abuuro nus ah moderniguna ma aqbalayo diintu ma aqbalayso caqligu ma aqbalayo saliimka laakiin waan aqbalay maxaan ku aqbalay waxa oran ma xale he waa hab yaro siyaasiyo aan ku meel gaadhayno yaan oranay laakiin waxay noqotay asaas bay noqotay okay aqliyadda caynkaas yaa waa aqliyadda fooshaxmo lawayaan marka iminka waxaan imanaa waxaa jira shucubka geeska afrika muxuu maanta u baahayay saddex shay u baahayay shucubka geeska afrika marka runta la isku sheego wayaan kow war geeska afrika ma kala maarmayo inaan been isku sheegin soomaali ka maarmi karta Ethiopia ma jirto madaxeena aan ka saarno Soomaalidu bila Ethiopia waxba maaha Ethiopiana Soomaali kama maarmi karto Ethiopia oo Soomaali ayna jirin waxba maaha dagaalka socday 400 oo sano 500 oo sano min Axmed Gure ilaa imika la budda wa an yatawaqaf wa inuu istaago wayaan macna male waa adami waa cabathi faa'iido male meel oo inagu wada ma jirto ha ahaado magac diineed ama magac qowmiyadeed ama magac siyaasadeed ha indhamaado marka geeska afrika wuxuu u baahan yahay in la wada noolaado waa wax laga maarmaan weeyaan Soomaali okay Djibouti Ethiopia kama maarmi karta yada wax kasta ay sameeyeen wax kan bay tagi cirka tagi dhulka tagi Djibouti waa hunguri strategic ma Djibouti meeshu ilaahay dhigay Ethiopia meesha ay saa u taalo haday Ethiopia burburto ay kala socoto waa wax kale way xasweeyaan laakiin sida ay tahay minka kama maarmi karayso Eritrea ma bedeli karto Djibouti Soomaaliya Djibouti bedeli karto waa loo baahan yahay wakadalika Eritrea wakadalika koonfurta Suudaan waan isku wada baahanay هذا هو المعنى الاول marka taas maxay taayush marka ka hadlayna maxaa ku jira istiqraar ba ku jira in la xasilo deganaan waa in laga shaqeeyo deganaanta yaa ka shaqeeyo waa arki doona laakiin waa ko laba geeska afrika muxuu baahay geeska afrika wuxuu baahay taxawul naxwa dimuqraadiya inay dadku ka guuraan xaaladda ay ku sugan yihiin oo dimuqraasiya loo guuro dimuqraasigu diin maaha sida badan sheegan oo diintiyaba may diintaada iska hayso shariicadaada iska hayso nina kuma diiday shariicada islaamku isku xukumi gobolka shanaadi wuxuu isku xukumi xeerkiisa qoyska wuxuu isku xukumi madanigiisa wuxuu isku xukumi habkiisa laakiin dawladda weyn imka Mareykanka waxa jira gobollo qofka qof dila iyo gobollo mamnuuc tahay qofka dila in la dilo mamnuuc ay tahay way wada nool yihiin kan kuma qasbo kan kuma qasbo wada noolaasho wacanka haddii dimuqraadiyad la helo dimuqraadiyadu maaha modelka reer Yurub kama qaadanayno ee xadaasada ee biladiinta ma qaadanayno waxaan qaadanaa dimuqraadiyad anaku aan leenahay waana ta ay reer galbeedka qaarkood la dagaalamaan Afrika dimuqraasi ma noqon karto waxay naga dhaadhiciyeen waa been weeyaan Afrika dimuqraasi way noqon kartaa laakiin marka qaarkood dimuqraasiga Afrika waxa loo diidan yahay lian Afrika waxay soo bandhigi kartaa dimuqraasi afrikanismiya Arabta waxa loogu diidan yahay waa sida waa inaan markaa bislaano inaan ka xorowno mu'amarada oo noqono dad xora oo u fikiraya si xora oo sameeysta dimuqraadiyadooda sida u wada Erdogan ba xoog ku sameeyo laakiin dimuqraadiyad la budda min dalik arrinta saddexaad ee geeska Afrika looga baahan yahay waa maxay marka la helo deganaansho dimuqraadiyadina la helo arrin saddexaad oo muhiim ah loo baahan yahay waxa loo baahan yahay in dadka loo sameeyo wax la yiraahdo xiriir abuura confiance iyo dhaqaale isbuuxiya dhaqaale takaamuli ah dhaqaalaha waxa la dhimika diraasaadka iskoolada oo dhan ee adduunka ka jira
diraasaadka ay sameeyeen qaaciday soo saareen waxay dhahdeen ma suurta galayso horumar inuu ka dhaco meel hadday dadkaasi ka yar yihiin 100 milyan laa tanmiyata fi mujtamacin aqal min 100 milyan subxaan allah soomaalidu isku celceli 30 milyan ma dhaafayso jibuuti waa 1 milyan haddaan been iska dhowrno eritrea 4 milyan iyo 5 sudan 30 milyan waxaan ku idhahdaa koonfurta sudan kasii yare kenya waa saas 100 milyan wax ku dhow ethiopia jirta wixiina kaleetoo dhan duuna dalik horumar maan samayn karnaa keligiina horumar ma samayn karnaa sidaa daraaddeed baa la sameeyey tajribadan ay qaateen eurobiyaanku ay dhahdeen dowladda ka xadgudbaysa xuduuda inyo eurobian maxaa loo sameeyey waa takaamul iqtisaadi faransiisku faransiis buu iska yahay belgigna belgig bay iska tahay laakiin faransiiska iyo belgig way kala maarmi kari waayeen isku beereen dhaqaalahaan marka inaa taa la sameeyo waxay noqonaysaa wax lagaba maarmaana ayay noqonaysaa okay arrintaas waxaa la dhahdaa sidee u dhici kartaa alxamdulilah sidee u dhici kartaa waxa loo yaqaano intiqaalka caynkaas inuu dhaco saddex shay aan sheegnay sideen ugu guuri karnaa waa kan waa halkii wadaa kayfa nantaqil min xaalati alistibdaad inaan dictator nahay min xaalati cadam alistiqraar inaan deganayn min xaalati cadam atakaamul inaan isbuuxinayn sideen uga guurnaa oo nagu guurnaa ilaa xaaladda aan sheegnay culummadu waxay leeyihiin intiqaalka noocaasa wuxuu u baahan yahay laba arrimood in la eego laba arrimood in isha lagu hayo kow in marka hore la sameeyo isbedel siyaasadeed ilaa nolosha siyaasadda xakuntee nolosha dhaqaaluhu ma xakunto nolosha diintu qorata ma xakunto nolosha fanku ma xakumo aarko nolosha political ba xakumo nabi maxamed example waan siinay sallam waa nabigeeni ilaahay muxuu yiri laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana okay nabi maxamed markuu maka joogay tagyiir ma sameyn wax isbedel ma sameyn limaada lianna power ma haysan muxuu sameeyay markuu maka joogay wuxuu sameeyay afkaar soo bedelay bas qof ku qanciyay qof baa qanciyay 2 3 5 10 20 laakiin nolosha socota maxay ka qabanayaan waxba kama qabanayaan isbedel hayaan waxa ay ka qaban karaan ma jiro muxuu markaa doodoonay wuxuu doodoonay inuu helo meel uu ku bedeli karo aragtida caalamiga fikrad inuu soo qadimo muxuu sameeyay suu u doodoonay ardal xabasha tag daa'if tag magasag madiino helay markuu madiino helay muxuu ka asaasay dawladdiisii maxaa dhacay intiqaal min marxala ila marxala siyaasiyan baa la isbedelay haddii kol dadku ay political ma isbedelaan wax badan baa isbedelaya marka waa inay jirta marxalad alcubuur min nidaam ila nidaamin aakhar ina transit la galo nidaam laga guuro oo loo guuro maxaan dhahnay nidaam kale waa kow labo marka la guuree waan guurnay la dhahdo sidii ka dhacday masar 2012 amba tunis ka dhacday amba libya ka dhacday halkaa marka la joogo marxalad baa la xaqiijiyey waa 50% maxaa dhacay nidaam baa laga guuray nidaamna waa loo guuray inkastoo nidaam laga guurina qof un la riday wadanada qaar laakiin nidaam baa laga guuray okay maxaa markaa dhacay nidaamka loo guuray wuxuu u baahan yahay in tarsiikh kitaabkii la socdaa nin sheegay alintiqaal wuxuu u baahan yahay cilmu alintiqaal iyo cilmu tarsiikh intiqaalku waa cilmi guuristu waa cilmi dad badan way ku najaxaan laakiin dad maxay ku fashibaan cilmu tarsiikh sidee baa wixii aan isku waafaqnay loo xididayni taxadiga ugu weyn ee maanta haysta geeska africa waxa weeyaan Ethiopia way guurtay laakiin hagee u guurtay dadku ma arkayaan okay Ethiopia way guurtay Eritrea maxaa ka socda dadku ma arkayaan Ethiopia way guurtay oo waxay taasiirisay raadisay maxaa dhahdaa madaxweyne farmaajo wuxuu booqasho ku tagay Eritrea Ethiopia way guurtay mashruucii bay ka laaqday Ismaaciil Cumar meel u socdo garan waaye dhama baa ku dhacay waxaasoo dhan way dhaceen okay laakiin maada bacdu maxaa intaa ka dambeeya okay waxaa markaa isla eegaynaa nidaamka siyaasiga ah si u najaxo ay ummadi doonayso iminka waxaa fadhiya dad baa fadhiya tira dhabe aqoon-yahana waxay la dagaalamayaan bay ahayd nidaamkii cabdi ile u dhacay cabdi ile saaxiibkii waa madaxweynaha axmed yaa saaxiibkii madaxweyne ninka cabdi ile ka af xumaa ayaa madaxweyne noqday ninkaasi iminka hadal fiican buu ku hadlay dadka waan soo dhaweynaa xataa lafti waan soo dhaweynaa waxaasoo dhan u wadayni okay diyaar laakiin su-aashu waxa weeyaan sidee bay camaliyad dimuqraadiya u najixi kartaa ethoobiana uga najixi kartaa soomaaliya uga najixi kartaa jabuuti uga najixi kartaa
السودان ورجع كرتا لأن تحول صدح ذا شيء وتا إني دعان يعني وضع نولاشو عملية ديمقراطية يتكامل دقال إنه دعو صورة تقل ما نقول أسبوعين دقال ما صورة تقل ما نقول حدي أهان الهلين صدح شيء أو كله أو مهمة وصولشك يا كو نظام كسياسي إيه وطن حكومي وينو فرفرويا ذاتيا إلا فرفر ما يسقوا إنه فرفرو حب لها بينك على أبي أحمد وحول أنو واس فرفري صدق شيء بعد إمك ساعتين أدريمسي كو معارض كي دي بده جوغي أوردن إثيوبيا سو قالوا لي إرهاب جنو كقاد حتى أنا لفتها إرهابيين ما أو لفتي قال لك الأورمدي ما هي إرهابيين بود ترر ما هي وما حي وضد مواطنين وليبا أنت أوضع في يسقوا وحول إرهابي جوا دولة تكليني سحري سوي إرهابي انفتاح مسلمين dadkii oo dhaway soo noqdeen labo infitaax diini oo Itoobiya wali ka dhicin muusabay muslimiintii culimadii oo dhan wax xabsiga soo siday bal kuwii 40 iyo 5 sano ka maqnaa Itoobiya ee Sacuudiga qaxootiga ku ahaa min boqor Faysal Allah yarxamo ilaa maanta way soo laameen ragii jaamacadda ka baxay barigii boqor Faysal oo boqorka ahaa 4 ragii jaamacadda Sacuudiga ka baxay iyo maanta diyaaradda ka soo dhacay oo soo laamay waa isbedel arrinta saddexaad isbedelkii wax weeyaan wuxuu yiri war waa baashkii hore waan rognay ma rabna inaan ka daba tagna dad inaan box saddex kala furnaan rabnaa si degan oo saabu waa infitaaxas waxa looga baahan yahay dadka gobolka shanaad xukuumadda bilaabaan inay Djibouti bilowdo inay Suudaan bilowdo lianna infitaax nidaam siyaasi haduu ima waayo waxa ma dhacayaan nidaamka siyaasiga waa inuu furo arinta labaad oo maxay waa kowtaasi arinta labaad waa inay jirto mustawa sare oo ay iswaafaqaan dadka elite ah ee labeenta bulshadu in ay xaaladda uga guurayaan in indhaha ku wada hayaan haddii taasi dhici weydo ba isbedel lama nacayo hadday dadka elite qaar dib u jiidayaan dowladda qaarna hore u jiidayaan dowladdu dhan ma dhaqaaqayso waa inaa qolada dib u jiidaysa laga takhaluso gacmaha la gooyo sidii Erdogan uu ku sameeyey Golan dib u jiidka waa in la reebo oo horjiidka la raaco okay arintaasina waa in dadka elite-kii inta ugu badan ay iswaafaqaan arinta saddexaad ee muhiimka ah waa la ilaaliyo oo la dhowro mabaadi'da dimuqraadiyadda waa maxay anigu waan jiraa adiguna waa jirtaa waxa inoo dhexeeya waa qaanuun bas waxa kale ma jiraan anigu waan jiraa adiguna waa jirtaa waxa inoo dhexeeya waa qaanuun xoog maaha مبدأ كواد ديمقراطية واتها لبو كرسي أد كفرديد أنو وان دونيا أدنا وان دونيسا وحان كو غاري أنا تو غاري ودورشو أوكي صدح أنيغو وحان ربا إن أن دالكن فكرات كسو كرديو أنا وحان ربتا فكرات دادي هورا إني سي فرددو وحان نكالا ساريا وشعبك أفر أنيغو وحان ربا إن أن دالكيغا أن كعلي عدو أن أركي أن واحد ربطها عدو أركيسيد إن الدل كعليسيد لكن أدو واحد الذي عدو وأديك أنا قلنا واحد كله عدو وأديك وإن حقا دافنو أنكر عدو عدو وأديك نماها أنا نماها عدو وجاهل لماذا وأنكولوجي هل كان قالوا سوا ديمقراطية يعدلكم كان كمان أوكي سدرادد محانكو هذا نينك هذا لينس ستيبيان علماء وين السياسة ده واحد كليه سي u dhacdo isbedel khaasatan Afrika waxay u baahan yihiin saddex shay furfur siyaasadeed dimuqraad in dadka la dimuqraadiyeeyo tarsiiq dimuqraadiya in dimuqraadiyada xid loo yeelo intaasina waa wax wada adag okay su'aashu waa si socona waxa leenahay maxaa inoo gargaaraya in aan sameeyno bulsho isbedelka ogol maxaa inoo gargaaraya maxaan haysanaa adawaad lil musaacada ma tiyaro maxaan haysanaa alaab ma adawaad إن الجرجار إنه وصينا إن أسبدل سمينه كو حلو بها إن هلا بلشة سياسات المجتمع السياسي ويلعبونه إنك ودن كينا جيس كينا مجتمع السياسي كم يجرو وحكي جرو مجتمع ما دون سياسة مجتمع مركو فكرية سي قبيلة وفكرية ريركا يوالي بابية دولة ريركا بحيستها ريركا سمحوا ليه dadkaasi u shirayaan waa inay naga qaadaan kursiga reerkiina ka qaadayaan qowmiyadiina ka qaadayaan okay waxa adduunka ka dhacay oo dhan wuxuu ka soo horjeedaa reerkiina waxa mujtamaca siyaasi lama dhaco mujtamaca ma duuna siyaasada qorsaya waa in la sameeyo mujtamac siyaasi sida uu yiri ninkii la oran jiray Rousseau
marka hadduu mujtamaca siyaasiga jiro horumar baa dhacaya, hadduu jiri waayana waxa weeyaan bad baan ka beeranaa bariis. marka waa inaan sameyno mujtamac siyaasadeed. laba waa inaan la sameeyo bulsho rayid, mujtamac madani. mujtamaca madanigu marka Afrika la joogo reerkaa kamid a, wadaadkaa kamid a, waxaa kamid a miskiidka ujeedaa, waxaa kamid a kaniisada, waxaa kamid a maxaan ku idhahdaa dumarka, waxaa kamid a dhalinyarada, waxaa dhahdaa civil society amba bulshada rayidka ah, mujtamac madani. laakiin bulshada rayidka ah marka lagu eegayo cilmiga cusub waxa weeyaan sidaas ma aha qolaatay. intaa waa kamid, waa intii nabi maxamed uu ka shaqeysiyay markuu dowladda qabanayay sallallahu alayhi wasallam. laakiin bulshada rayidka runta ah ee taasiirka samaysa waxa weeyaan qolooyinka xuquuqda bini'aadamka difaaca, xuquuqda haweenka difaaca, xuquuqda bi'ada difaaca, xuquuqda xayawaanka difaaca, xuquuqda dadka laga tira badan yahay sida dadka anaku aan adoonsano een magacda u bixinay een maaragtay tumaal iyo waxaan u bixinay xuquuqdooda kuwa difaaca, kuwa noocaas ah waa in la sameeyo. oo adigu marka aad lagu dulmo meelaad ku orodid ay jirto ku difaacaysa, marka waa inuu jiro mujtamac madani. mujtamac madaniguna wuxuu gargaaraa mujtamaca siyaasiga. marka haddii la sameeyo bulsho siyaasadeed dadku waxay ka guurayaan reernimadii, waxay noqonayaan xisbiyo. haddii mujtamaca siyaasadeed la sameeyo dadku waxay ka guurayaan reernimadii waxay u guurayaan fikir. okay, labada shay siyaasaddu. haddii bulsho madaniya la sameeyo oo rayida la sameeyana dadku waxay ka guurayaan kala shaqayntii, waxay u guurayaan wada shaqayntii. waa arrinta labaad weeye. arrinta saddexaad u baahan isbedel uu ku iman waxaan mafhuumu dawla. dadka waa in loo soo bandhigo dawladda mafhuumkeegu waa sidee. dawladdu dawladdu madaxweynaha, dawladdu ra'iisul wasaaraha, dawladdu wasiirka gaashaandhigga, dawladdu maxay tahay? ma hiya dawla? ma alfarqu bayna adawlati wasulta? maxaa u dhexeeya dawladda iyo powerka? dawladdu goormay dawlad noqotaa? goormuu qofku dawladda hogaamiyaa? muxuu ku hogaamiyaa? shicibku intay ku leeyihiin dawladda raad intuu shicibku waxaasoo dhan mafhuumka dawladda waa in la macneeyo. yurub ma ayna gaarin dimuqraadiyad iyo xorriyad intayna taa macnayn. nabi maxamedna dadka uma dhisin islaamnimo ilaa u macneeyey dowladnimada. aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa aatawu zakaata wa amaruu bilmacruufi wamaasaadkii wanahaw can almunkar walilahi caaqibatu lumuur. markay kusoo suurat alxaj markay kusoo tagtay markii dambe dowladda la sameeyey. dowladda mafhuumkeeda waa inuu cad yahay, dadku wada cad yahay. arrinta afraad waxa weeye waa inay lala dagaalamo oo la tirtiro jiritaanka dowladda muwaasiga ah. dowlad marka la sameeyo dowlad ba hoosta fadhida, dowladdaasi dowladda fashilisa. iminka matala Ethiopia waxa ka dhacay oo dhan dowlad ba hoosta fadhido fashilinaysa. Masar dowlad ba fashilinaysa. ay dowla wadanada dowlad weyn ay ka jirin qabiilo camiiqa jirta oo samaysantay oo danta ka shaqeysa. wadanada qabiilo ayna ka jirin camiiqana sida iminka Soomaaliya ka socoto kore waxaa jira jamaacatu daqd alcamiiqa, jamaacad masaalix la jira, wadaado danaystayaal shirkado waaweyn sameeyey oo dan ay wahin dowladnimadu. waxaasoo dhan waa in la tirtiro aayar dowla camiiqa. arrinta shanaada ugu dambeysa waa in la sameeyo mujtamac iqtisaadi, bulsho dhaqaale waa in la sameeyo. haddii dhaqaalaha dadku ay samaysanto dadku danaystayaal bay noqdaan, way nacaan dagaalka. dadku markay dhaqaale helaan, lacag helaan, xoolo helaan waxay ku oranayaan war ana baabiin. laakiin qof markuu gaajoonayo tirtir buu koran meesha beed cunta aniga waa liigu cadibe iyo kaa dhargey mana kaa dhargnay si maalin mid dhalinyaro oo ismaaciil mar la hadlo curi waa liimidee annaku waa hore u gaajoonayni annaka maanta waxba noo soo biray waxba mar marka mujtamac iqtisaadi ah waa la dhiso. okay, sidaa daraadeed waxaan leenahay haddaba caqabaadka ina hor yaala iyo xalkii waa kaas. xalku waa in la guuro, waa in la rarnimo. dadka qaarkood buugaan aan ka akhriyay Afrika oo geeska Afrikan wuxuu uga sheekeynaysaa waxay leeyihiin waxaa jira 3 caqabo oo hortaagan geeska Afrika inuu isbedelo la socdaya. caqabada koobaad waxaa hor yuraray lambar 1 waxay leeyihiin waxaa jira quwado muhiim ah oo raba nidaamka siyaasiga abuurmaya inay bedelaan, dib u soo ceshaan. quwadahaas waa international, waa China iyo kuwa la halmaala. 2 waa gobol khaliijka dowladda ka jira. waa 3 kuwa gudaha fadhiya oo camiiqa yaa jira. isbedelka la dagaalamayo waa 2. 2 waxyaalada haysta inuu isbedel dhici waayo geeska Afrika qabila kalsoonida shicibka oo yar. shicibku cabsi, shicibku argagax buu ku jiraa. halkeena loo wadaa iyana qabsanaya. shalay Tigray baan haystay Soomaalida oo kale saabeen maanta Oromo aqli ma 50 malyan oo saaya walaba dhulkooda way buuxiyeen. anaga dhulkooda waa faaruq. dhulka la isku diray waa dhulka Soomaalida in la dagaal doonaya.
siqa ma jirto, confiance kalsooni la-aan, cabsi baa jirta. marka taasina waa kamid wax laga soo akhriya kamid tahay. arrinta saddexaad waxaa jira arrin loo yaqaano dad fara badani ma aqbalayaan muasasaadka dimuqraadiga raalliga maaha, waxay ka jecel yihiin muasasaadka moralka ah, ugaasiyada iyo boqorada iyay kaga kalsooni badan yihiin muasasaadka dimuqraadiga. waa caqabooyinka asaasiga ah ee dadka haysta weyaan. arrin kalaa jirta afaraad oo iyaduna caqabo ah, waxay leeyihiin mujtamacun bayniyun, waa bulsho weli badownimadiina kasoo baxday magaaladiina aadin oo dhexda fadhida. jir ahaan magaalay fadhiyaan laakiin caqli ahaan baadiya joogaan, miyi bay joogaan. marka miyinimadii baa jiidanaysa oo ka ceshanaysa magaalanimada. taasina rag badan baa ayaa qaba caqabaadka. caqabada ugu dambeysa ay qaar qabaan waxaa kamid a xoolaha badan ee dad gacanta u galay oo ay ka baqayaan inay xoolahan waayaan. marka laba hortaala, xoolahan inay haystaan si ay suldadiina markaa u qaban karaan, ama haddii taa dhicoodu inay dhulka baabiyaan. taasina waa mushkilada ugu weyn ee haysata weyaan. haddaba walaalayaal, waa nii soo bandhigay soo la sheekeyey qaar kamid a mashaakilkiina waan ka sheekeeyey, caqabaadkiina waan ka waramay. waxaan kaga baxayaa kelmadeedan aadka u dheeraatay, waxaan kaga baxayaa laba arrimood. midi waa talo, midina waa aragti weyaan. tal ahaan waxaan siinayaa dadka afka soomaaliga ku hadla ee walaalahaya af soomaaliga ku hadla waa qalad. dadka soomaaliyeed soomaalida af soomaaliga anaku francophone manihin, dadka afka faransiiska ku hadla waxay dadka aan faransiiska u dhalan ee afka faransiiska ku hadla. dadka caynkaa aaminsan anu meehi, anu ma aaminsani dadka af soomaaliga kolba afka ka soo baxdaa, laakiin sida xaqiiqada waxayaan dadka soomaaliyeed, soomaali baana ilaahay baa naga dhigay. waxaan kula talinayaa, taladu waa taas, waxaan kula talinayaa inay 3 arrimood ilaaliyaan. 1, inay dhaafaan oo ay tashadaan, ay danaystaan, ay dhaafaan caqliyadda reernimada. cadow maaha daaroodku, ugaadeenkuna cadow maaha, dirna cadow maaha, hawiyana cadow maaha. caadi baan u sheegaya luqadaas. midna cadow maaha, dad walaalaatiin. markaa dhaafa marxaladaas ku dhaafnaa ninka nii taalaade ilahay caqli buu nasiiyey, maxayaba maan nahay, maskax buu ilahay na siiyey, muxuu na siiyey ragnimo, waan dhaafi karnaa. dad beri baadiye jooga yaa city fadhiistay, xeer bay samaysteen. xeer haddaad akhrisatid, nin baa doctora ku qaatay cali muuse, waa nin aqoon-yahan weyna oo ka shaqeey uniskooga. muxuu ku qaatay doctora, wuxuu gaadhay u helay inuu mujtamacaasi bulshadaasi ay ahaayeen waqtiga bulsho ay hogaaminayeen wadaado scientific waa ku gaadhay oo fiqiga islaamka laga soo saaray xeerka. laakiin waxaa la yidhi sideen uga baxnaa markii dowladihii islaamka ee geeska africa burbureen, ee buuraha etoobiya laga soo weeraray ee la xayawaaneeyey dadkii, sideen uga baxnaa? waxay dhahdeen haddii xeer la waayo waa la xooloobi bay dhahdeen. markaa xeer samaysan caqli bay kaga baxeen. markaa shariicadoodii bay kasoo qaateen, dhaqankoodii bay kasoo qaateen, bii'adii bay kasoo qaateen, xeer bay samaysteen. dadkaas baan ka midnahay haddaan Soomaali nahay. xeerkaas wuxuu ka jiraa meelo badan, wuxuu ka jiraa awdal, wuxuu ka jiraa maxaan ku dhahdaa waqooyiga maaragtay waxaa loo yaqaano Somaliland, wuxuu ka jiraa Puntland, meel uu ka maqaya ma jiro. laakiin ninba sibuu u haystaa. xeerkaa baa la samaystay, ugaasiyaa la samaystay. waxaa laga soo baxay marxalad. maanta marxaladan waxay u baahan tahay luqad lamid a inay dadku isku yimaadaan oo ay dejiyaan habkii looga bixi lahaa. waa ka weyn. okay, arrinta labaad u baahannahay marxaladan waxa weyaan Soomaali haddaan nahay in aan taxdiidino maxaan rabnaa, aan xadidno. ma waxaan rabnaa inaan sidaa aan nahay aan ahaano oo ubadkeenu ay sidaa ahaadaan, ubadkoogu sidaa ahaadaan, mise waxaan rabnaa inaan sidan si dhaanta aan uga baxno? okay, caqligu wuxuu leeyahay may sidaasi maaha. sidaan uga baxnaa markaa waxay inaga baahan tahay saqaafadda la yidhahdo atacaayush. han wada noolaano, dadkana hala noolaano, wixiinana han ilaashano, dadkana waxaan la ilaashano. inaan saqaafada iyo cultureka aan qaadano waa laga maarmaan. maaha bahasha laleeyahay anaa hebelto waxba ma tari karayso. ikhwaani fillah, dadka in la wareerin. 3, dadka Soomaalida waxaan ku waanin lahaa in ay fahmaan inay yihiin muftaaxa dhaqaalaha geeska Afrika. geeska Afrika fahan, adigaa ka aabba laga maaha. min Kismaayo ilaa Jabuuti waxaad haysataa badda ugu dheer. ninka ku yidhaahda waxba ma noqonaysid isagaa iska hadlaya. ninka ku yidhahda waan ku wareerin isagaa iska hadlaya. laakiin adu fahan in lagu wareeri karayn. 3 shay Soomaalida ayaan kula talinayaa. arrinta iga ah inaan
fikrad aan soo tabiyo waxa weeyaan marxaladan waxaan u baahannahay laba qolo. waxaan u baahannahay almufakir asiyaasi, aqoonyahan siyaasiya. uma baahnin siyaasi. dadkeenu ma kala yaqaanaan mufakirka siyaasiga iyo siyaasiga. uma baahnin oday siyaasi noqda, loo baahno. odayga siyaasiga noqda waxa weeyaan wuxuu ka fikirayaa danaha reerkiisa. qabiil buu ayuu aabe ka yahay, inuu qabiilka daniisa ilaaliyana waa loo doortay, halkaa ha ku joognaado. looma baahno qof caynkaas. waxaa loo baahanya khabiir siyaasiya, waxaa loo baahanya mufakir siyaasiya. mufakirka siyaasiga muxuu sameynayaa? wuxuu dhigayaa laba shay. wuxuu inoo soo bandhigayaa aragti, wuxuu inoo soo bandhigayaa sidee looga bixi dhibaatooyinka. maxaa xala? labada shay buu dhigaa, aragti iyo dhibaato iyo xal, sidee looga bixi. marka maanta maxaan u baahannahay? mufakir siyaasi aan u baahannahay. waxaan u baahannahay aqoonyahan siyaasi ah. arinta siyaasiga ah isaga maxaan uga baahannahay? ninka siyaasiga waxa looga baahanya isagana waa aragtideede laba shay. inuu falka uu falayo ku saleeyo cilmi iyo dan, maslaxadiisa maaha maslaxadda ummadda, almaslaxa alculya, iyo aqoon inuu yeesho. siyaasiga inuu dadka hogaamiye ah waa inuu 40 jir ka weynaado weyaan. uma baahnin dhalinyaro 40 jir ka yar oo jaamacadda ka soo baxay 4 sano 5 sano ka hor, oo Ethiopia siday tahayba aan fahansaneyn, complicated Ethiopia aan fahansaneyn. Ethiopia Ahmed Abi ma xukumo. Ethiopia khubar haga daba fadhida, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradaha fadhiya. waxaan u baahnay marka inaan dadka la sheekaysan kara oo la hadli kara oo dhalinyaradan 30 jirka ana ay ku hoos bartaan inay jiraan ayaa loo baahan yahay. marka taasina waa aragti weeyaan. aad baad u mahadsantihiin meel kastoo dunida ka sugantihiin. intaan dib u kulmi doono barnaamij kale waxaan iga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.